maraakiibtan waxay dowladda Soomaaliyeed ay heshiis la gashay shirkadaha maraakiibta sameeya kuwaasoo loogu talagalay inay ilaaliyaan xeebaha Soomaaliyeed. marka sidaas darteed ayaan maanta ay nimankii shirkadda ahaa ayaa halkaan lagu martiqaaday oo yidhi kaalay arka noocyada maraakiibta ee Soomaaliya la geen karo. runtii sidaa ka warqabtid xeebta Soomaaliya waa xeeb aad u dheer. doonyahan oo kale wax weyn ayay ka tarayaan dhinaca ammaanka xeebaha Soomaaliyeed, xagga la dagaalanka burcadbadeedda, la dagaalanka dadka si sharci darrada ugu kalluumaysanaya xeebta Soomaaliya, iyo dadka hataa ganacsiga xaaran ka wada waddanka sida bahaladan drugs la yiraahdo ama hubka hataa qolooyinka si qarsooni ah waddanka u soo duulay. marka maraakiibtan oo kale waxay noqonayaan maraakiib runtii aad wax ka bedela nabadgelyada Soomaaliyeed. heshiiska oo uu yahay ilaa iyo 6 doonyo kuwaan oo kale, maraakiib kuwaan oo kale ayaa heshiiska ku jira. heshiiska waxaa kaloo ku jiro in shaqaalihii meeshii lagu tababaro ilaa iyo muddo 5 sano ilaa 7 sano, kadibna ay la wareegaan maamulkiisa iyo adeegiisii ay la wareegaan